madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ku dhawaaqay in gabi ahaanba kooxda Daacish laga sifeeyay deegaanada Puntland. qodobkaas waa qodob aad u weyn, waa ku dul istaagi doonaa iyo sidoo kale halkee ayuu ku dameeyay caleemasaarkii madaxweyne Firdhiye oo toddobaadyo ka hor xitaa hoolka la diyaariyay ee madaxdu isugu imaan lahaayeen. maxay tahay caqabada ilaa hadda haysata madaxweyne Xasan Sheekh oo ka soo qayb gali lahaa oo isaguna diiday, muxuu u diiday? iyadana waa ku dul istaagi doonaa. nabadda Ceerigaabo ayaan iyadana eegi doonaa. madaxweyne Deni oo shalay si fiican nabadda ka socota Ceerigaabo oo amaanay iyo sidoo kale madaxweyne Cirraba iyo sidoo kale waxaa eegi doonaa maxay tahay heshiiska hadda Puntland iyo sidoo kale Somaliland hadda dhex yaala. iyadana waan eegi doonaa oo madaxweyne Deni ayaa shalay si faahfaahsan arrintaas uga hadlay. iyadana waan eegi doonaa wuxuu ka yiri madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. balse marka wax ka codsanay inay YouTube-ka ku soo biirto oo subscribe dhahdo muuqaalka la iga saarto, kambalaalkana furto si ay ku soo gaaraan muuqaalada maalinlaha ay halka ku soo gudbino. haddii aan ku bilaabo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa shalay ku dhawaaqay in kooxda argagixisada ah ee Daacish ay ku dhumaaleysata Buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland la soo afjaray kadib sanad iyo dhowr bilood oo ay ciidamada difaaca Puntland halkaas ay kula dagaalamayeen ayna ku baacsanayeen. dagaalkan ayaa wuxuu ku bilaabmaday qaraxyo ay kooxda Daacish ku soo qaaday ciidamada difaaca Puntland oo markaas u diyaar garoobayay inay dagaal ku qaadaan. waxaan halkaas ku dhintay dhowr qof oo ka tirsan ciidamada difaaca Puntland. waxayna ahayd cabsigelin lagu cabsigelinayay ciidamada difaaca Puntland, balse uma aysan joojin oo dagaalkoodii ayay sii wateen. sidoo kale wejiga labaad kooxda Daacish ayaa ka dhigtay in drones aad u tiro badan ay ciidamadii la dagaalamayay ay ku soo weeraraan, halkaasna ay ciidamo badan Puntland kaga dhinteen, balse aysan Puntland arrintaas u joojin. kooxda Daacishna ay dagaalkii ay ku sii wadeen ciidamada difaaca Puntland. haddii maalintii qaraxyada lala beegsaday ciidamada difaaca Puntland ay joogsan lahaayeen, maanta guushaas la gaaray oo in kooxdii Daacish laga sifeeyo Buuraha Calmiskaad ma aysan hirgasheen. maxay uga dhigan tahay Puntland in kooxda Daacish laga sifeeyo? waa arrin weyn oo kor u qaadaysa in dadka ganacsatada ah ee Nairobi iyo wadamada kale ee dariska ah ganacsiyadooda geystay iyagoo ka baqaya kooxaha argagixiso inay baad ka qaadaan. waxay hadda ku soo herin karaan inay Boosaaso, Garowe iyo Gaalkacyo iyo magaalooyinka kale oo ay qarna ka mid tahay ay yimaadaan, isla markaasna ay ganacsiyadooda keensadaan waliba si ammaan ah. waana guul aad u weyn in ay la soo afjaro kooxda Daacish. waxa uu sheegay madaxweyne Deni inay firxad yar ka harsan yihiin, firxadkaasna ay ciidamada difaaca Puntland ay ku guda jiraan inay maalmaha soo socda ay dhamaystiraan. ma ahan guutooyin meel fadhiya, balse waa niman ku dhumaalaysanaya buuraha oo qaraxyo iyo aasaya. mana aha niman saad haysta. muuqaalo dhawaan laga soo duubay ayaa lagu arkay kooxda Daacish oo waxay qalanaysaa dameero. waa meeshii heerka ugu dameeyay. ugaartii markay deegaanka ka dhameeyeen ayay bilaabeen in dameerihii ay raranayeen ay qashaaneen aan dhehe. waana baahi meesha ugu dameysay ayay marayeen. ciidamada difaaca Puntland ayaana ku talagalay inaysan wax saada nimankaas u gudbin. waana guul weyn oo ku ammaano yahay madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo ciidamada difaaca Puntland. isagu waa ku dhiiraday. ciidamada difaaca Puntlandna arrinkaasi kaalintooda ayay ka qaateen. qodobkeena xiga halkee ku dameeyay caleemasaarkii madaxweyne Firdhiye oo toddobaadyo ka hor muuqaalo TikTok iyo Facebook lagu baahiyay, la arkayay hoolashii oo la diyaariyay, kuraastii madaxda ka soo qayb galaysay oo la diyaariyay. wararku waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo arrintaas iska diidan yahay. markii hore madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku xiray SSC Khaatumo inay ciidamada ku xiran Somaliland aan dhehe ciidamada ku xiran magaalada Laascaanood ee laga haysto maamulka Somaliland. dagaalkii Gooja Cadana laga qabsaday in ciidamada la soo sii daayo ayuu madaxweyne Xasan Sheekh codsaday. waa isku noqdeen madaxda iyo dhaqanka maamulka SSC Khaatumo, waxaana la gartay in tiro kooban la sii daayo oo ka tirsan ciidamadaas maamulka Somaliland laga qabsaday. haddana arrimo siyaasadeed oo Puntland iyo Somaliland iyo dhinacyada oo madaxweyne Xasan Sheekh uu ka rabo in arrimo siyaasadeed uu isagu ka rabo ayuu la leeyahay waa u baaqday. haddana SSC Khaatumo kama aysan daalin ilaa iyo hadda. waxay ku guda jiraan inay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay keenaan magaalada Laascaanood, taas oo maqaamka maamulka
kor u qaadi kartaa indhaha caalamkana kusoo jeedin kartaa maamulka SSC Khaatumo haddii madaxweynihii ugu sareeyay uu yimaado dalka markaasna ay imaan karaan safaaradaha Muqdisho jooga ayna ka howlgali karaan balse arintaas waxa weeye wali ma cadda inuu imaanayo Xasan Sheekh iyo inuu imaaneen labadaba arintaas ma aysan cadda laakiin wuxuu u baaqanayo ilaa hadda ama uu hakadka ugu jiro على مسارك مدحوينه فردية aan dhahay arintaas ayaa kamid ah in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu diidan yahay inuu halkaas tago dhanka kale nabadda Ceerigaabo ka socota ayuu madaxweyne Deni shalay ka hadlay xilli uu ka hadlayay baarlamaanka Puntland oo shalay furmay waxa uu sheegay inay nabadda Ceerigaabo ay muhiim tahay maadaama ay tahay magaalo ay dad Soomaaliyeed oo tiro badan oo gobollo kala duwan ka soo jeeda ay degaaniin inay muhiim tahay ayna ku taalo meel halbowle ah maxay tahay sidoo kale heshiiska Somaliland iyo maamulka Puntland ay galeen wuxuu sheegay madaxweyne Deni in arinta ugu weyn ay heshiiska u galeen ay tahay in laga wada shaqeeyo nabadda deegaanada maadaama ay xuduud leeyihiin Puntland iyo sidoo kale Somaliland sidoo kalena madaxweyne Deni ayaa sheegay mar hadii dagaalka calmiskaad uu soo dhamaaday calmadow loo leexanayo arinta ugu weyn oo ay u heshiiyeen arintaas tahay maadaama labada dhinac ay xuduudo ku leeyihiin calmadow ay xuduudo ka dhaxayso waxa ay sheegeen kooxda al-shabaab oo halka ku dhumaalaysanaysa inay dagaal la geli doonaan hadii dagaal la galana ay noqon karto in dhinka Somaliland oo farxadka u yaaco arintaasna iyadoo laga taxadarayo in dhinacooda Somaliland ka soo adkayso difaaca Puntlandna ay dhanka dagaalka la gasho ayaa la leeyahay buu heshiiskooda ugu weyn ku qotomaa saas ayayna Puntland iyo Somaliland ay u heshiiyeen intaas ayaan ku soo goobeynaa barnaamijkeeni maanta hadduu muuqaalkan ku soo gaaro wax ka codsanaya inaad like saarto YouTube subscribe dhahdo gambalelkana furto si ay ku soo gaaraan warbixinada maalinlaha halkan ku soo gudbino waa mahadsantiin